Assalaamu calaykum saaxiibayaal. Soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeena maantana waxa aan uga hadli doonaa jilaaga caanka ee Baramanandam oo ay Soomaalidu u taqaano Leelefow. Haddaba haddii aad xiisayso jilaagan, nala jir oo nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. magaciisa oo dhammaystiran waa Baramanandam Kaniganti. Waxa uu dhashay 1 February 1956. Waxa uu ku dhashay Sitiniballi, degmada Guntur ee gobolka Andhra Pradesh. Aktarkan hadda waa 63 sano jir. Waxa uu degan yahay magaalada Hyderabad. Dhalashadiisu waa Indian asal ah, waana jilaa dhanka shactirada filmaanta ku jila. Leelefow waxa uu aflaamta ku soo biiray sanadii 1986. waqtigaas ka hor waxa uu ahaa macallin Telugu ah. waxa uu wax ka dhigi jiray Atili oo ku yaala West Godavari ee gobolka Andhra Pradesh. Baramanandam waxa uu guursaday Lakshmi iyadoo u dhashay 2 wiil kuwaas oo la kala yiraahdo Raja Gautam iyo Siddharth. sanadii 2017 waxa Raja Gautam u dhashay wiil isagoo noqday awoowe. Baramanandam waxa uu soo dhigay wax ka badan 10 filim, sidaas darteed waxa uu galay buugga dhacdooyinka adduunka ee loo yaqaan Guinness World Records. sidoo kale waxa uu ku guuleystay abaalmarino tiro badan. waxa ka mid ah abaalmarinadaas sanadii 1992 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta loo yaqaan Filmfare Best Comedian Award. sidoo kale waxa uu abaalmarino ku guuleystay sanadihii kala ahaa 1993, 94, 95, 96, 2008 iyo 2014. abaalmarinta loo yaqaan Nandi noocyadeeda kala duwan iyo abaalmarinta loo yaqaan Movie for Comedian Best. bishii January ee sanadii 2009 xukuumadda India waxa ay guddoonsiisay abaalmarinta lagu magacaabo Padma Shri oo ah abaalmarinta afraad ee ugu sareysa dalkaasi India ee la guddoonsiiyo dadka rayidka ah. Baramanandam Kaniganti waa jilaaga kaliya ee kaana sanad gudihii wax ka badan 3 filim. isku soo wada duub, Baramanandam waxa uu ka mid yahay aktarada lagu kalgacalka badan yahay caalamka. intaas ayaan ku soo afmeerayaa muuqaalkeena maanta isaga oo xambaarsanaa warbixin ku saabsan Leelefow. fi amaanillah. si aad u hesho xogo iyo macluumaad badan oo ku xiiso galiya, hadda booqo oo subscribe leh channelkeena Iliska Dunida oo ka mid noqo boqolaalka qof ee ku xiran channelkeena. nagulana soo biir caalamkan cusub oo aad ka faa'iidi doontid xogo iyo macluumaad ka yaabiya.